waxaa lagu jira xilliga kulaylaha oo baddu way kululaataa. Arrintan waxay sababtaa in malay badan uu bannaanka u soo baxo. waana xilliga ay kalluumaysatadu sameeyaan kalluumaysi badan. laakiin kalluumaysatadu waxaa haysata caqabado badan oo ugu horeyso inaysan haysan qaboojiyaal ay ku kaydsadaan malayga. taa beddelkeedana uu dhulka daadsan yahay. waxaan u baahannahay qaboojiyaal iyo suuq nadiif ah iyo suuqgeyn iyo ganacsato yahay iyo dawladda way wax ka qaban kara inay wax noo dhisaan oo dib u qabtaan malayga oo xanaaneeyaan ama suuq geeyaan suuq dibadda ah. u baahannahay marka malayga uu go'aa mar dhow haddana uu bilaabana. nooca malayga loo yaqaano tuunaha ayaa ah mid bilooyinka qaar la waayo. waxaana soo dhow xilligii la weyn lahaa haddana ma jiraan meelo lagu kaydiyo. malayga waxa uu ka mid yahay khayraadka Soomaaliya. kalluumaysataduna ma haystaan gacmo kale oo ka caawiya kana horumariya agabyada ay u baahan yihiin. haddaba sidee khayraadkeenna malayga ee dhulka daadsan lagu samayn karaa xal waara?